السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. hurdadu waa qayb weyn oo ka mid ah nolosheena oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoogu nimceeyay. Hurdo yaraanta ama hurdada qofka ku yaraataana waxay ka dhigan tahay dhibaato caafimaad oo soo gaadhay qofkaas, mid jidheed iyo mid maskaxeedba. Waxaana xilliyadii u dambeysay aad u batay dadka ka cabanaya hurdo yaraanta. Waxay haddaba khubaradu sheegeen in la isku daro muus iyo qolofal lagana sameeyo sharaab lana cabo hurdada ka hor inay wax weyn ka tarayso hurdo yaraanta. Muuska waxa ku jira maadada ximdul tryptophan iyo maadooyinka calciumka, potassium iyo xadiidka, kuwaas oo ka saacidaya in hormoonada jidhkaagu si fiican u shaqeeyaan, isla markaana waxay door weyn ku leeyihiin nidaamka hurdada. Dhinaca kalena, qolofalka waxa ku jira saliido u fiican jidhka sida saliidda ugenol. Waxa kaloo ku jira qolofalka vitamin A, waxaanu qolofalku hoos u dhigaa cilladaha ku yimaada wareegga dhiigga iyo casiraadda caloosha, kuwaasoo carqaladeyn kara hurdada. qaabka haddaba sharaabkan loo diyaarinayaa waa inaad litir biyo ah karkariso. Markay karsamaana waa inaad soo qaado 2 xabo ama xabad muusa, kadibna aad googayso oo aad ku dhex darto biyihii, kadibna aad isu dayso 10 daqiiqo. 10 daqiiqo markaad isu dayso muuskii iyo biyihii, 10 daqiiqo kadibna waxaad ku daraysaa malqacad yar oo qolofala oo shiidan, kadibna waxaad cabaysaa 1 koob xilliga hurdada saacad ka hor. Ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. Aad baad u mahadsantihiin.